بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo gudaha iyo dibadda waxaan rabaa halkan inaan u sheego shacabka Soomaaliyeed in aan hadda ka soo baxay meeting aan la yeeshay beesha caalamka safiiradeeda kala duwan ee u jooga Soomaaliya waxaan ka wada hadalnay waxyaabihii noo qabsoomay doorashada heerka ay marayso iyo sida aan u daadihin lahayn loona gaari lahaa doorasho waxaan kaloo ka hadalnay sidii loo dardargelin lahaa doorashadan loona gaari lahaa hadafka ah inuu dalka ka dhaco doorasho sidoo kale waxaa jirta in aan shalay la kulmay ururada bulshada culamaa diinka haweenka iyo aqoon-yahanada Soomaaliyeed shirkaas oo aan kaga hadalnay arrimaha doorashooyinka iyagoo ii sheegay inay la kulmeen walaalahayaga qaybaha kala duwan ee daneynaya inay ka qayb galaan doorashada madaxweynenimada sidoo kalena aniga shalay iyo tiimkayga ay la kulmeen si saraaxad leh oo wanaagsan ayaan uga doodnay iskuna qancinay waxaan isku afgaranay dhammaanteen in aan loo baahneen in wax dalkan dhibaato gelinayo ama xasiloon darro gelinayo inaan lagu dhaqaaqin oo dadka iyo shacabka iyo dadka masaakiinta ah loo naxo waxaan kaloo isku afgaranay in wada hadalladeena ay socdaan joogtana ay yihiin gaar ahaan anigana aan u sheegay markasta culamaa diinka ururada bulshada iyo haweenkaba inay diyaar u ahay inay yimaadaan qof kastoo daneynaya ama cabashaqada sidoo kalena aan u sheegay shalay inay ila fariistaan diyaarna u ah inay cabashadooda xalliyo haddii ahaan lahayd doorashada iyo mid guud iyo mid gaar ahaaneedba sidaa darteed shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa isdejiya aniga oo mas'uul ka ah dowladda xukuumadda ra'iisul wasaaraha ka ah waxaan idin sheegayaa inaan diyaar u ahay inaan qof kasta qaabilo kalena hadlo wixii caqabad ah ama cabashaha ay dareemayaan inay jirto sidoo kale waxaan leeyahay dadka walaalahayaga oo tabaya ama qabo cabasho ku saabsan arrimaha doorashada in uu furan yahay xafiiskayga albaabkayga wajigayga diyaarna aan u ahay inaan idin qaabilo anigoo aan diyaar u ahay sidoo kale inaan cabashadiina aan tixgeliyo idinkala fadhiiso oo aan xal waara ka gaarno waxaan leeyahay isdejiya looma baahno in xasaarad ama xaalad la abuuro oo dadka lagu kicinayo dadkan waa dadkeennii marka waa inaan ilaalinaa danta guud ee maslaxada ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka magaalada Muqdisho ku dhaqan iyo hantidooda iyo noloshooda aan ilaalinaa